بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال مeel kasta oo daafaha caalamka joogtaan ku soo dhawaada warka saacada Rays TV xaruntiisa magaalada Muqdisho. Anigu Baaji Cabdullaahi Salaada ayaa idin la socodsiinaysa. Guddiga doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta la filayaa inay bilaabaan diiwaangelinta musharaxiinta doonaysa inay u tartamaan guddoomiyaha iyo ku-xigeenada. Guddiga doorashada guddoonka golaha aqalka sare ayaa bilaabaya maanta oo Talaado ah diiwaangelinta musharaxiinta guddoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay guddiga ayaa lagu yiri sidaan maalinta oo ah 19 Abriil 2022 guddiga doorashada guddoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu bilaabayaa diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya xilka guddoonka golaha aqalka sare. Dhinaca kale guddiga doorashada guddoonka golaha ayaa dhankooda maanta bilaabaya diiwaangelinta musharaxiinta guddoonka golaha iyadoo ay jiraan musharaxiin dhowr ah oo doonaya inay u tartamaan xilka guddoonka golaha shacabka baarlamaanka. 26 bishan ayaa lagu wadaa in la qabto doorashada guddoonka aqalka sare halka maalinta xigta 27 bishan la qabanayo doorashada guddoonka golaha shacabka. hayeeshee waxaa jira xildhibaan diidan jadwalka la soo saaray. dable hubaysan oo aanan habtooda la aqoonaya xalin nabadoon bedel jaamac ku dilay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. koox hubaysan ayaa salaadii maqrib kadib degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ku dishay abwaan bedel jaamac xeesi oo kamid ahaa abwaanada Soomaaliyeed. dilka ayaa dhacay xilli uu abwaanka ka soo baxay salaada maqrib isagoo ku sii jeeday hoygiisa. kooxdii dilka geysatay ayaa meesha iskaga baxsaday. ciidamada ammaanka ee degmada ayaa soo gaaray goobta uu dilka ka dhacay waxaana halkaasi ay ka wadeen howlgallo lagu baadigoobayo kooxdii ka dambeysay. ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda dilka loo geystay abwaan bedel jaamac. abwaan bedel ayaa ka mid ahaa dadka sida weyn loogu yaqaan falanqeynta siyaasadda isaga oo markasta ka hadli jiray arrimaha taagan ee dalka. madaxweynaha dalka ayaa cambaareeyay weerarkii shalay lagu qaaday xarunta golaha shacabka ee Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho. madaxweyne Farmaajo ayaa cambaareeyay weerarkii argagixiso ee shalay kooxda Al-Shabaab ku qaadeen xarunta Villa Hargeysa isagoo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in meel looga soo wada jeesto ficilada guracan ee kooxda Al-Shabaab si buuxdana loola shaqeeyo ciidamadeena geesiyaasha ah har iyo habeen u taagan sugidda amniga dalka. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa caafimaad u rajeeyay muwaadiniinta uu dhaawac ka soo gaaray falkii argagixiso ee shalay lala beegsaday xarunta Villa Hargeysa. shalay ayay ahayd markii weerar hoobiyaal ah lagu weeraray xarunta golaha shacabka ee Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho waxaana dhaawac uu ka soo gaaray dadka agdhawaa goobta iyo ilaalo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. waxaana weerarkaasi mas-uuliyadeeda sheegatay kooxda Al-Shabaab oo caan ku ah dilalka iyo qaraxyada ka dhaca gudaha dalka. dowladda Eritrea ayaa markii ugu horeysay qiratay in ciidamadeedu ay ka qayb galeen dagaalkii gobolka Tigray. cadeymo mar la arag ah ayaa ka soo baxay xukuumadda Asmara kuwaasoo ku saabsan ku lug lahaanshiyaha ciidamada ee dagaalka ka holcaya waqooyiga dalka Itoobiya. markii ugu horeysay ee dowladda Eritrea sheegatay in ciidamadeedu ay ku sugan yihiin gobolka Tigray ee dhaca waqooyiga Itoobiya halkaas oo ay ka dhaceen gabood fallo ka dhan ah dumarka iyo ragga ka soo jeeda qoomiyadda Tigrayga. warqada Eritrea jimcihii la soo dhaafay u dirtay golaha ammaanka qaramada midoobay ayay ku sheegtay inay u hoggaansantay qaraarkii qaramada midoobay ee ka dalbanayay in ciidamadeeda kala soo baxdo Itoobiya. xukuumadda Asmara waxay warbixinteeda ku sheegtay inay bilowday la bixidda kumanaanka askari ee ugu sugan gobolka Tigray. wasaaradda warfaafinta xukuumadda Asmara ayaa faafisay nuqul ka mid ah warbixinta oo loo gacan geliyay 15 dowladood ee xubnaha ka ah golaha ammaanka. cadeymahan ka yimid Eritrea ayaa ku soo aadaya maalin kadib markii Mark Lowcock oo ah madaxa isku xidhaha hay'adaha gargaarka qaramada midoobay uu sheegay in aysan jirin wax daliil ah
oo muujinaya in ciidamada Eritreyaanka ay iskaga baxeen dalka Itoobiya. hay-adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqul insaanka iyo inta badan dowladaha reer galbeedka ayaa soo saaray warbixino ay ku sheegayaan in xasuuq bini'aadanimo uu ka dhacay waqooyiga Itoobiya, waxaana gabadfalada ugu daran lagu eedeeyay ciidamada Eritrea iyo maleeshiyad ka soo jeeda qoomiyadda Amxaarada, kuwaas oo daacad u ah xukuumadda Abiy Ahmed. madaxweynaha Hirshabelle oo dhexdhexaadinaya Fahad Yaasiin iyo ra'iisul wasaare Roble iyo kulamo uu la qaadanayo dhinacyada iskhilaafsan. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen oo maalintii shalay ahayd soo gaadhay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa bilaabay kulamo siyaasadeed iyo kuwo dhexdhexaadin ah oo ka dhaxwado dhinacyada isku khilaafsan arrimaha doorashooyinka. warar hordhac ah oo soo baxaya ayaa iftiiminaya in madaxweyne Guudlaabe uu qorshaha u yimid Muqdisho ay salka ku hayso sidii uu uga shaqeyn lahaa fasaxista kursiga doorashadiisii la hakiyay ee uu ku soo baxay taliyihii hore ee sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin, kaas oo ilaa iyo hadda khilaaf adag ka taagan yahay. madaxweyne Guudlaabe ayaa la filayaa inuu kulan la qaatay 24 saacadood ee soo socda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka sidii uu ugu qanciyo in kursigaasi la fasaxo si aan loo sii hurin khilaaf kale oo sabab u noqda dib u dhac ku yimaada doorashada. waxaana arintaasi si weyn isha looga hayaa maadaama uu Fahad Yaasiin taliyihii hore ee sirdoonka Soomaaliya uu aad u daneynayo inuu u tartamo shirkudoonka golaha shacabka Soomaaliya oo bishan gudaheeda la qabanayo doorashadooda. madaxweynaha Hirshabelle ayaa xoguhu tibaaxeen in sidoo kalena uu kulamo la qaadanayo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo lagu tiriyo inay saaxiibo dhow oo dhanka siyaasadda ah yihiin. kursigan Fahad Yaasiin ayaa hore loogu baaqay madaxweyne Guudlaabe in aanu doorashadiisa qaban, balse doorashada ayaa dhacday waxaana lagu soo doortay Fahad Yaasiin, taas oo sababteedu in markii dambena laga reebo xildhibaanada shahaadada la siiyay. waxaana Fahad Yaasiin waqtigan uu dacwad dhankiisa u gudbiyay madaxda sare oo la sugayo jawaabta ay ka bixiso. si weyn ayaa isha loogu hayaa kulamada madaxweyne Guudlaabe ka bilaabay Muqdisho xilligan oo ay socoto diyaarinta doorashada shirkudoonka baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. komishinka xuquuqul insaanka dowladda Soomaaliland ayaa ku baaqday in 15 suxufi ay xidhan ay helaan cadaalad kana hadlay xaaladooda. komishinka xuquuqul insaanka dowladda Soomaaliland ayaa ku baaqay in 15 suxufi ay ku xidhan maalinkii 6aad magaalada Hargeysa ay helaan cadaalad sugan marka la horgeeyo maxkamadda. komishinka xuquuqul insaanka Soomaaliland ayaa warmurtiyeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in ay wariyaashaasi xaaladooda fiican tahay waqtigan, sidoo kalena ay u cadeeyeen in si wanaagsan ula dhaqmeen ciidamada xarunta dambi baadhista Soomaaliland oo ah goobta ay ku xidhan yihiin. komishinka ayaa intaasi ku daray in kaliya dhibka wariyaashaasi haysta inay tahay in ay ku yar tahay qolalka ay ku xidhan yihiin, ayna u baahan yihiin in qolal waasic ah loo bedelo. halka sidoo kalena ay cadeeyeen in askartu ay u ogolaadeen daawooyinkiisa wariye Maxamed Eli oo xaalad caafimaad la soo daristay. waxayna taliska xarunta dambi baadhistu ay komishinka u xaqiijiyeen in wariyaasha loo ogolaan doono inay la kulmaan ehladooda iyo qareenada u doodaya. 15 wariye ayay xukuumadda u haysataa baahinta dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe ee Hargeysa ee uu sababay shaqaqadii dhex maray ciidamada xabsiga iyo maxaabiista. guud ahaan daawadayaal qodob-wareedkaas ayaa ugu dambeeyay warka saacadda Rais TV xarunta magaalada Muqdisho. anigu Baaji Cabdullaahi Salaad ayaa idin la socodsiinaysay. intan dib dambe ugu kulmi doono warkan warka xigaan idin kugu dhaafo sida iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga, kaas oo ay la socoto
daqiiqado free ah, xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban, iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobaylka waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeegga internetka Hormuud ee ADSL Plus. Guriga, xafiiska ama xarunta shirkadaada, isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida.